wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay carwo lagu dhiirigelinayo cuntooyinka wadaniga ah ee nafaqada leh. Munaasabadda bandhigan oo ay ka soo qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka, wasiir ku-xigeenka beeraha, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo hay'ado caalami ah kuwa qaramada midoobay iyo kuwa wadaniga ah ee la shaqeeya wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ururada ka shaqeeya cuntooyinka wadaniga ah, ururka hiliblayaasha ee nafaqo, shirkadaha kalluunka iyo ganacsatada iibisa wax soo saarka wadaniga ah. Furitaankii carwadan waxa ugu horeyn hadal ka jeedisay Dr. Farduus Cismaan oo ah madaxa nafaqada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland. wasaaradda caafimaadku sidoo kale waxay qayb ka tahay wasaaradda caafimaadku waa dawladdu qayb ka tahay habu socodka nafaqada wadanka iyo cuntooyinka aynu cunayno iyo u fiirsashadeeda waxyaabaha bulshadeena ay cunayso haday tahay maxay hayto noocyada cuntooyinka kala duwan. sidoo kale waxaynu xoojinaysaa wasaaradda caafimaadku xoojinaysaa system kasta oo lagu hubinayo laguna dhameystirayo xogaha la xiriira caafimaadka iyo nafaqada. wasaaradda caafimaadku sidoo kale waxa ay ka shaqeynaysaa sidii ay u dhexgelin lahayd mashaariicda kale ee jira, sidii ay uga shaqeyn lahayd wasaaradaha kale barnaamijka nafaqada. waayo wasaaradda caafimaadka kaliya ma aha ta shaqadeeda ay tahay inay eegto bulshadu waxay cunayso inay caafimaad qabaan. marka wasaaradaha kale, wasaaradda beeraha, wasaaradda wacyigelinta iyo dhaqanka, wasaaradda kalluumaysatada iyo livestock, wasaarado badan ayaa ku lug leh wada shaqeynta in laga wada shaqeeyo cuntooyinka aynu cunayno inay ahaadaan kuwa caafimaadkeena saacidaya oo aanay ahaanin kuwa caafimaadkeena waxyeelaya. kulay Farduus baa aad u faahfaahisay munaasabadda maxay ahayd ujeedadeeda iyo waxaanu ka leenahay. waxaan ku dari lahaa munaasabadda abaabulkeedu iyo objectivekeedu waxa inuu noqoto wacyigelin maadaama aynu ka mas'uulnahay wasaaradda caafimaadka bulshada caafimaadkeeda. runtii xanuunada maanta aynu la daala dhacayno waxa weeyaan non communicable disease-ka kuwa loo yaqaano, hadday tahay kansal, hadday tahay macaan. dhakhaatiirta dadka ugu badan jiifa bariga hore dadka ugu caafimaadka badan wadankan ku haysan waxaan reer miyiga, laakiin maanta dhakhaatiirta dadka ugu badan jiifa ee waliba macaan iyo kansal iyo maxay dhiig karo hayo waa dadkii miyiga. taas maxayna tusinaysaa maadaama iyagu haayeen dadkii ugu caafimaadka badnaa loo noqon jiray dadkii magaalada hadalkeeda badaa. waxay tahay taasina inaynu wixii ay soo saaran jirnay amba cuntadii nafaqada lahayd amba wixii organic ah inuu ka tagnay. guri kastaba 8% wuxuu cunaa ay tahay wax mooran, hadday noqoto sharaab, hadday noqoto maxay cuntooyinkii kale ay deyn u badannahay wax mooran. marka wasaaradda caafimaadka kulli caafimaadka ay u taagan tahay waxaan wacyigelinaynaa inaynu badub ugu noqono wixii baalka lahaa cuntadii nafaqada lahayd. geesta kale waxaa munaasabaddan hadal ka jeediyay mas'uuliyiin ka tirsan ururada wadaniga ah, saraakiil ka socota hay'adaha dawladda iyo abwaano iyaga oo ka warramay faa'iidada cuntooyinka wadaniga ah. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland, Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa ka warramay isaguna sida ay muhiimad weyn u siinayso wasaaradda horumarinta caafimaadku nafaqada. marka la eego hawsha aynu maanta halkan u joogno ee ah cuntooyinka nafaqada leh ee wadankeena ka soo go'a, markaynu eegno cuntooyinkaasi inay ka raqiisan yihiin ama ay xagga qarashka ka yar yihiin cuntooyinka dibadda inooga yimaada ee aan nafaqadii waxba u tarayn. haddii hooyooyinka aynu si wanaagsan ugu dhiirigelinno isticmaalka cuntooyinka wadanka ka soo go'a, isla markaana aynu ku dhiirigelinno helitaanka cuntooyinka oo ay ka heli karaan ama ay ka tabcan karaan inta yare xataa ay degan yihiin. waad ogtii magaalada Hargeysa sida jaanibo inala joogaa iminka inay deegaanka Kristaan ay ka soo saaraan koobis aad u badan ama cuntooyinkan ama khudaarta faraha badan oo ay markay kiradiisa ka bixiyaan weliba ay ka helaana faa'iido badan. marka inaynu dadkeen iyo hooyooyinkeena barno sida ay u heli lahaayeen cuntooyinka inoo soo go'ayo oo xataa meesha yar ay hooyadu degan tahay miyiga iyo magaalada ay kala soo bixi karto. haddaanay kala soo bixi karinna
intii ay ku iibsanaysay kilooga bariiska iyo kilooga baastada ay ku soo heli karayso cunto nafaqo leh oo cuntadii waddanka ka soo go'daya oo carruurtiina uga nafaqo badan dadkii waaweynaana uga nafaqo badan hawsha aynu maanta halkan u taagannahay waa hawshaa waynu dhiirigelinaynaa waanu qaadanaynaa wasaarad ahaan inaanu isticmaalno miinis kasta oo ugu horreeya social media sidii aanu dadka uga wacyigelin lahayn cuntooyinka laga keeno dibadda ee nafaqa ahaanna wax badan aan inoo tarayn caafimaad ahaanna laga dayrinaya inuu la socon karo caafimaad darro. wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo ka mid ahaa marti sharafta munaasabadan ka qayb qaadanaysay ayaa isaguna ka warramay wasaarad ahaan sida ay uga go'an tahay dhiirigelinta wax soo saarka wadaniga ah. farxad weyn bay tahay maanta inaan ka soo qayb galo munaasabadan ama carwadan bandhigan dhiirigelinta cuntooyinka nafaqada u leh ummadeena sida aynu ka wada warqabno Jamhuuriyadda Somaliland waxaynu leenahay inuu haysanaa kheyraad diin oo dabiici ah oo badii bariga yaala isla markaana waxaynu haysanaa carro caafimaad qabta iyo ciid hodan ku ah inaynu wax beerano in kala soo baxno wixii aynu rabnay oo waliba caafimaad qaba sidaa awgeed inagoo heli karayna cuntooyin caafimaadkoodu sugan yahay oo ka jaban cuntooyinka kale inaan garanayn meelaha laga keenay waa ayaan darro weyn inay bulshadeenu dhex wado ama ay dhinac wado cuntooyin kale oo ay ka wahsadaan cuntadii dalkooda inay isticmaalaan ma cunaan wasaaradda horumarinta caafimaadka oo ka mas'uula guud ahaan caafimaadka dalka Jamhuuriyadda Somaliland bulshada ku nool oo dhan waajibaadkii xilka iska saartay nafaqeyntu waxay hooyo u tahay caafimaadka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland Mudane Liibaan Yuusuf Cismaan oo bulshada u diray fariin ku saabsan dhismaha jidh iyo maskaxeed ee ay leeyihiin cuntooyinka wadaniga ah ayaa isna waxa uu yiri arrintan waa arrin aad iyo aad u weyn waa mandate-kii iyo waajibaadkii ay lahayd wasaaradda horumarinta caafimaadku inay wacyiga dadka kor u qaado maaha uun caafimaadka wasaaradda caafimaadka ujeedadeedu inay cisbitaallo iyo xarumo caafimaad dhisto si dadku markay xanuunsadaan loo keeno loogu daweeyo mandate-ka kaa ka weyn iyo hadafka kaa ka weyn waxa weeye in laga hortago dadkeenu inay xanuunsadaan ilaahay baa xanuunka iyo dhimashada labadaba haye inaynu xoogga saarno inaanay dadkeenu aanay bukoonin oo aanay cisbitaal iman inta ugu badan aynu kala dadaali karno oo culaysyada intay naga haysta cisbitaallada dadka dhaqaalaha muxuu ahaayey badani kaga baxayo dhaqaaliheenii guud ee dalku hoos ugu dhacayo waxa inooga wanaagsan inaynu samayno tallaabooyin aynu kaga hortagin tanaa ka mid aynu maanta halkan ku hayno oo ah inaynu dadkeenna ku wacyigelino inay cunaan cuntooyin dheelitiran si ay uga badbaadaan xanuunada aynu la daalaadhacayno ee halkan laga tiriyey ee ay ugu horreeyaan kuwa chronic ah oo ay intooda badan sababto lifestyle-ka iyo cuntada sida loo nool yahay iyo cuntada la cuno oo arkaysaano imika xanuunada soo bata dadkeena waaweyn waxay dhahdaan waxane dadku waxana way cuni jireen waxana may dhici jireen markaa sidii loo noolaaba ayaa sidan aynu u noolahay maanta ka duwan cuntadaynu cunno maanta iyo cuntadii hore aynu cuni jireenna way kala duwan yihiin 20 sano 30 sano ka hor markii qaxoontiyada loo kacay dadka intaynu maanta caafimaadkeenu yahay waynu ka caafimaad badan waayo waxaynu cuni jirnay cuntooyin locally loo soo saaro oo cuntooyinka aynu muxuu ahaayey dalkeena ku soo saarno waaxda nafaqeynta ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland ayaa sanad kasta qabata carwo noocan ah si ay bulshada ugu wacyigeliyaan cuntooyinka habboon ee waddanka oo si fudud loo heli karo